markii uu Ruushku weerarka ku qaadayay Ukraine sanadkan 2022 cunaqabataynta reer galbeedku waxay ahayd mid horay ugu socotay dalkan. ciqaabtaasi waxay bilaabatay sanadii 2013 goortaas oo Ruushku uu si xoog leh inta u duulay uu Ukraine kala wareegay gobolka Crimea ee dhaca badda madow. jawaabta reer galbeedku waxay ahayd cunaqabatayn dhaqaale oo la saaray Ruushka. cunaqabatayntaas ayaa jug weyn u geysatay dhaqaalihii Ruushka. dhaawaca cunaqabatayntaasi wuxuu sababay in lacagta Ruushka ee rubalka qiimaheedu uu hoos u dhaco oo ay lumiso kala bar. iyadoo dalka Ruushku uu xaaladaas ku jiro ayaa guddoomiyihii bangiga dhexe ee Ruushku xilku ka dhammaaday waqtigaas. ninkaas oo la oran jiray Sergey Ignatiev wuxuu xilku ka dhammaanayay bishii Juun sanadii 2013. 3 bilood ka hor xilligaas wariye Ruusha ayaa goob fagara madaxweyne Putin ku weydiiyey shakhsiga uu doonayo inuu u magacaabo bangiga dhexe ee Ruushka. madaxweyne Putin wuxuu ugu jawaabay sidan: guddoomiyaha cusub ee bangigu wuxuu noqonayaa qof si kadisa ku soo baxa, laakiin wuxuu noqonayaa qof aad jeceshihiin. kadiska uu madaxweyne Putin maalintaas sheegayay waa gabadha la yiraahdo Elvira Nabiullina oo xilligaas ahayd la taliyaha madaxweyne Putin ee dhinaca dhaqaalaha. waana gabadha warbixintani ay sida gaarka ugu saabsan tahay. Elvira Nabiullina waxay ku dhalatay degmo la yiraahdo Ufa sanadii 1963. degmadaas waa magaalo madaxda dowlad goboleedka Bashkir ee dhaca koonfurta bartamaha Ruushka oo ay ku dhaqan yihiin qoomiyadda Tataarku. waxa iska dhalay aabe iyo hooyo Tataara. magaca qoyskeeda oo ah Nabiullina wuxuu ka soo jeedaa erey Carbeed oo waa Nabiyullah. aabaheed waxaa la oran jiray Shaqiib Zaada, wuxuu ahaa darawal. hooyadeedna waxaa la oran jiray Suleekha, waxay ahayd maareeye warshadeed. Elvira Nabiullina waxay ka qalin jebisay jaamacadda Moscow sanadkii 1986. kadib sanadii 2007 jaamacadda Yale ayay ku biirtay oo ay ka korsatay aqoonteeda dhaqaalaha. maalintaasuu madaxweyne Putin uu wariyaha la hadlay. intii ka dambeysay dad badan oo siyaasadda ku jira ayaa waxay isweydiinayeen sababta uu Putin u doortay gabadhan. dad badan ayaa ka shakisanaa Elvira Nabiullina inay tahay qof jilicsan oo aan ka soo bixi karin hawshan adag, maadaama Ruushku uu xilligaasi ku jiray dagaal dhaqaale oo uga socday dhinaca Yurub iyo Maraykanka. iyadu ma ahayn xilligaas hortiis qof laga yaqaanay bulshada hoggaanka dalka haysa dhexdooda, laakiin xantaas ku socotay Nabiullina ma ahayn mid iyada soo gaaraysay, bal waxay ka raacday socdaal dheer oo u bilowday, kaasoo ah inay dagaalka caalamiga ah ee socda dhinaceeda ka geejiso. intaynaan socdaalka dheer la gelin aynu xusna muhiimadda uu u leeyahay dal kasta bangiga dhexe qofka mas-uulka looga dhigayo. mid walba oo ka mid ah bangiyada dhexe ee dowladaha waa hay-ad mas-uul uga ah dowladdiisa la socodka hagidda hanaanka maaliyadeed ee dalka uu ku dhisan yahay. bangiga dhexe oo kasta waxa uu ilaaliyaa xasiloonida lacageed iyo ammaanada maaliyadeed, isaga oo tala ka dhiibanaya kana qayb qaadanaya kobaca dhaqaalaha dalka, xakamaynta sicir bararka, shaqo u abuurka xoogga dhallinyarada iyo difaaca cumlada dalka. Nabiullina markii ay xilka la wareegtay waxa ay difaaca ka bilowday inay nadiifiso musuqii ka jiray bangiyada dalkeeda ee Ruushka. waxaa xusid mudan in xilligaas bangiyada Ruushka ka furnaa tiradoodu ay ka badnaayeen 1000 bangi. wax yar maahee waxa ay ku wada shaqaynayeen badankood musuq iyo boob hanti dowladeed. Nabiullina si adag ayay u dhex gashay sharciyaddii iyo waraaqihii bangiyadan. mid kasta oo ay khalad yar ku aragtay waa ay xirtay oo ruqsaddii ayay ka qaaday. bangi la yidhaahdo Master Bank ayaa ugu horreeyey bangi ay xirto. iyadoo aan 5 bilood joogin ayay albaabada isugu laabtay ruqsaddiina ay ka ceshatay.
kadadii uu shacabka ruushku sugayey oo la filayay inay jeclaystaan maalintaas ayaa soo ifbaxday. bangigan waxaa saami weyn ku lahaa nin la yidhaahdo igor putin oo ay ilmo adeer yihiin madaxweynaha ruushka. igor putin wuxuu ahaa ku-xigeenka bangigan islamarkaana wuxuu xubin ka ahaa guddiga bangiga. bangiyada ay xirtay waxaa ka mid ahaa geobank, interbrom bank, gc bank, istrakhan bank, russian commercial bank, russian credit bank, web money payment bank. bangigii ugu horreeyey oo wall street ka socda oo la xiro wuxuu ahaa goldman. waxaa ku xigay bangiga la yidhaahdo western union. faracii bangiga dhexe ee ukraine ayaa sidoo kale ka mid ahaa bangiyada lagala noqday ruqsadda. sanadku inta uusan dhammaan, bangiga dhexe ee ruushku waxa uu ruqsaddii kala noqday 37 banki. sanadkii ku xigay 2015 waxaa ruqsaddii lagala noqday 50 banki. maanta waxaa dalka ruushka ka shaqeeya 370 bangi oo keliya. intaas kadib, dunida reer galbeedka ayaa la yaabay Elvira Nabiullina. warbaahinta Yurub iyo Maraykanka ayaa aad uga faallooday siyaasadda dhaqaale ee ay la timid. wargeyska Economist oo kale faallo uu ka qoray Elvira wuxuu ciwaan uga dhigay haweeneyda Putin gacanta midig u ah. waxayna khubarada dhaqaaluhu qireen kartideeda, waxayna sheegeen tallaabooyinka ay qaaday Elvira Nabiullina arrin wax laga baran karo. Nabiullina iyadoo horteed cid ku dhacday ma jirin inay bangiyadaas xiraan ama ay ka agdhowaadaan. sababtuna waxay ahayd xiriirka uu mid walba la lahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa ruushka. laakiin gabadhan waxay ku socotay laba awoodood oo mid ay tahay rabitaanka ay doonaysay iyo inay aqoonteeda ku difaacdo dalkeeda, iyo kalsoonida ay ka haysatay ninka ugu sarreeya xilka dowladda waa madaxweyne Putin. sanadkii 2014 iyadoo fagaaraha hanaanka maaliyadeed uu ka socdo ololaha si nadiifinta bangiyada ayaa dhanka kale waxaa jiray caqabado xooggan oo hor yaallay dhaqaalaha ruushka. waxay kala ahaayeen cunaqabatayntii oo ku socota ruushka, qiimihii shidaalka oo xilligaas hoos u dhacay, iyo maalgashigii shisheeyaha oo lacagihii kala sii baxaya ruushka. Elvira sanadihii ay ka shaqaynaysay bangiga dhexe waxay aqoonsi ka heshay hay-ada caalami ah sida sanduuqa lacagta adduunka IMF, ganacsato, maalgashadayaal, bangiyo badan iyo maxadyada cilmiga, kuwaasoo u arkayay inay tahay xirfadle karti leh. Elvira Nabiullina waxay noqotay gabadha keliya ee hoggaamisa bangi dhexe ee dowladaha ugu dhaqaalaha fiican dunida, waddamada la ysku yidhaahdo G8. waxay si qurxoon oo lagu ammaanay uga guulaysatay mashkiladihii dibadda iyo gudaha. ammaantii ay ka heshay caalamka maaliyadda ma ahayn inay bilaash ku heshay, waayo guuldarradii lala doonayay dhaqaalaha dalkeeda ayay u ragtay guul. Elvira tallaabooyinka ay qaaday, xeeladihii ay la timid, iyo dagaalkii ay la gashay Yurub iyo Maraykan intaas kuma eka. la soco qaybta labaad.